هارون حماسن waxaan u hambalyeynaa degmadan cusub ama degmooyinka cusub ee deegaanka magacaabay biyada iyo taariimi taasi oo iyaguna ka go'ay degmada Tuuliguuleed oo muddo badan khilaafaad dagaalo iyo dhibaatooyin qax ay ka soo taagnaayeen iyadoo wada ognahay in dhibaato badan ay ka jirtay dhinacaasi nabadgelyada. Haddaba maxay soo kordhin karaan labadan degmo ee la magacaabay ee maanta lagu dhawaaqay ama shalay lagu dhawaaqay كلية فايدين كوجود جرات كذا سوماليات إلك سوى دجا على حاس كري شارسو ويوم نسكو هي نعتلا ما دجانا داسي ريمتو نسكو هي يضاء ونودوج نهاية دجانا كلا أبدان أي كوبيرن أورميا وما تجمعين كلا فربدان يوم أورميا كوبيرن زي تجمع مكان يسجن سني أو هراء كوبيرن هتوا هاي سوق بكرتها تجمع المسب أملا تجمع المسب هاي سوق بكران أمنيكا برشة عفماتك ورمرك إسفهانك يدقى لحظة maxay soo kordhin kartaa ayaan caawa isweydiin doonaa naftarkayga oo idin soo gudbin doona fikirkayga gaaban kulli qodobo badan oo isweydiiyay aniga Haaruun ahaan ama ka fikiray oo aan rogay waxyaabo badan oo faa'iido ah oo ku jira degmadan cusub ama degmooyinka cusub oo ah dhinaca amniga amniga inuu yahay yani faraha koowaad ee yani mashiinka rogi doona labadaasi beelood in ay yani nabadgelyo ka dhacdo oo waxa weeye halkaasi lagu najaxo laba waxa kale oo yadna halkaasi ku xiga in ay dhici karto isla socodka ama isku socodka deegaanadaas dhexdooda oo dhibaato badan iyo dagaal iyo aan isku dil iyo waxa iska jireen inay yadna soo afjarmi doonto oo la isfahmi doono oo halkaas in lagu najixi doono ayaan yacni isleeyahay waa faa'iidooyinka labaad ee ku jirta faa'iidada saddexaad ama qodobka saddexaad aan usoo gudbana waxaa yadna jirta in ay dhici karto qolo walba in halkeeda isku maamusho halkeeda ku nabad gasho halkeeda ku barato caafimaad ku hesho oo halkaasi isfahan oo ka iman doono iyadoo wada ognahay waliba in ay mararka qaar ay xasaradaha ama dhibaatooyinka iyo khilaafaadka iyo mar ay soo gaari jireen magaalada Jijjiga dhammaan waxaasna inay meesha ka bixi karaan ayaan aaminsanahay oo isleeyahay waa faa'iidooyinka ku jira dadku isfahmi karaan oo wax weey u soo celin kara walaalnimadii wada sheekaysigii wada socodkii iyo saddex socodkiiba walaalnimadii batay qodobkeena afraad ama shanaad isna waxa meesha imin ku jirta in la oran jiray yani orama soo duushay ama orama waxa sameysay ama orama san tiri ee qodobkaasna oo meesha ka bixi doono oo isna maanta ka bacdi uu yahay ebermiya jacaylkeeni waayo waxaan wada ogeyn in aan halkaasi wax orama ay joogin dad Soomaaliyeed qabiil Soomaaliyeed ay jireen halkaas u dagaal jiray isdil jiray dagaalkan ma hina 10 dagaal horna soo dhaxmaray taasina ay soo jirtay in macnaheedu dad badan oo Soomaaliyeed ay mood jireen in soo duuleen dad orama halkaasina aan wax ka jirin taasina way yadnacni waa faa'iido kale oo dambeyntii daawadayaal waxaan soo dhaweynaynaa degmada cusub biyada iyo degmada cusub taariimi yadna waan soo dhaweynaynaa hambalyo leenahay